سلام الله عليكم سود وهذا صاحب بيال وبرنامج كي حكمة waxaan maanta ku soo qaadanaynaa sheeko aad u cajiib ah nin boqor ahaa ayaa wuxuu qabay afar xaaska afraad aad ayuu u jeclaa wax walba ay u baahatana wuu siin jiray xaaska saddexaad wuu jeclaa waqti badanna wuu ku bixin jiray laakiin waxa uu ogaa in ay nin kale ka raaci doonto xaaska labaad in yar ayuu jeclaa laakiin mararka ay murugadu soo wajahdo oo xaalad dhib uu la kulmo ayuu u tagin jiray markaas uu la tashan jiray madaxa iina u dajin jirtay xaaska koobaad bataatanba ma jeclayn mana u tagi jirin in muddo ah markuu joogay ninkii boqorka ahaa wuu xanuunsaday waxaana soo wajahday xaalad caafimaad darro sakaraadkii ayaa ku soo dhawaaday aad ayuu u sakaraaday waxa uuna dareemay in uu gabangaba yahay markaas ayuu isugu wacay xaasaskiisii marka laga reebo tii koobaad oo uusan jeclayn xaaskii afraad ayuu la hadlay waxa uu ku yiri aad ayaan kuu jeclaa wax walba aad u baahato waan ku siin jiray xaaladeyda maantana waad arkaysaa oo waxaan ahay gabangabo haddii aan dhinto qabriga ma ii raacaysaa oo ma igu wehelinaysaa markaas bay ku tiri waan ku raacayaa balse waqti badan kuma sii wehelin doono xaaskii saddexaad ayuu soo jaleecay markaas buu ku yiri waqti badan ayaan kugu bixiyay haddii maanta aan dhinto qabriga ma ii raacaysaa oo ma igu wehelinaysaa markaas bay ku tiri noloshu aad bay u macaan tahay nin kale ayaan iska guursanayaa xaaskii labaad ayuu soo jaleecay markaa buu ku yiri marka aan problem iyo dhib uu haysto waad ila talin jirtay madaxana waad ii dejin jirtay ee qabriga ma ii raacaysaa oo ma igu wehelinaysaa markaas bay ku tiri may balse waan ku dhaweynayaa oo qabriga ayaan kuu dhaweynayaa yacni waan ku sagootinayaa halkaa marka uu marayo oo uu aad u murugsan yahay ayuu waxa uu maqlay cod meel fog ka dhawaaqaya wuu soo jaleecay saa waxaa ku soo socota xaaskiisii koobaad oo ay ka muuqato diif iyo dhibaato markay u timid ayay ku leedahay aniga ayaa ku raacaya oo weligaa qabriga kula joogaya kuguna wehelinaya markaas ayuu haddana mar kale sii murugooday oo ku cataaway alla maxaan adigu kuugu ekaan waayey oo adiga aan kuula joogi waayey alla yaa waqti kale isiiya waqtigii wacnaa oo aan soo haystay yaa mar kale ii celiya si aan adiga kuugu ekaado oo aanan xaas kale u guursan dunuucda qisadani waxa weeye qof waliba oo bini aadama waxa uu leeyahay afartaas xaas ee aan soo sheegnay oo la dhigan afar shay xaaladda afaraad ee aan ku tilmaamnay xaaska afaraad waxa weeye jirkaaga had iyo jeer waad nadaafadaysaa cunto nooc walba iyo sharaab walba ayaad siisaa oo u baahdo balse marka aad dhimatid qabriga lagu geeyo wax badan siima jirayo oo ciidda ayaa cunaysa halkaa ayuuna ku idlaanayaa ku dhammaanayaa xaaladda saddexaad oo aan ku sheegnay xaaska saddexaad waa maalka iyo hantidaada waqti badan ayaad ku bixisaa si aad hanti badan u heshid laakiin marka aad dhimatid nin kale ayaa qaadanaya yacni dad kale ayaa dhaxlanaya oo hantidaadii qaadanaya xaaladda labaad oo aan ku tilmaamnay xaaska labaad waa asxaabtaada iyo ehelkaaga keliya waxay kuu awoodaan in ay qabriga ku geeyaan oo ay ku sii dhoweeyaan xaaladda koobaad oo aan ku sheegnay xaaska koobaad waxa weeye camalkaaga had iyo jeer waad ka mashquushaa oo nadaafadda jirkaaga tabcidda maalkaaga iyo in maskaxda lagu dejiyo oo fikir ama talo lagu siiyo ayaad uga mashquushaa sidaa awgeed marka ay ku soo wajahdo xaaladaas oo kale murugo leh ayaad xasuusan doontaa oo aad dhihi doontaa allah yaa waqti fiican isiiya oo aan cibaadadeyda ama camalkayga aan ku hagaajiyo haddaba waxaa kuu habboon camalkaaga inaad ka hormarisid tabcidda maalkaaga
dhisidda jirkaaga iyo la wadaagidda fikir ama talo dadka kale. gabadh wadaad ah ayaa waxa ay wacdinaysay hablo ay muxaadaro u haysay. markaas bay ku tiri waxaa laynkaga baahan yahay in aad soo noolaysaan sunnadii nebiga sallallahu calayhi wasallam oo aad u ogolaataan nimankiina in ay xaasas badan guursadaan. markii ay dhammaysay khudbaddii ayay gabadh soo istaagtay ayada oo meel taagan bay u timid. markaabay ku tiri intay madaxa ka dhunkatay ku tiri alxamdulillaah haddii aad ogolaatay in 4 xaas 3 xaas oo adigu 4 ku tahay lagula guursado. markaas bay ku tiri oo sabab waxay ku tiri ninkaaga ayaan in muddo ah isqabnaa adigana waa lagaa qarinayay cabsi lagaa qabo darteed oo uu ninkaagu kaa qabo. arrinkaa markii dhagaheeda uu ku soo dhacay way naxday, naxdin ay la suuxday. waxay gaadhay in la geeyo isbitaal si xaaladdeeda caafimaad loola socdo. gabadhii ayaa waxa ay ka mid ahayd dadkii isbitaalka u soo raacay. in muddo markii la joogay ayay gabadhii wadaadda ahayd soo naaxday. markay soo fariisatay waxay aragtay gabadhii arrinka ay dartii u suuxday ku tiri oo ag fadhisa. waxay ku tiri macallimadeydii iska kay cafi, waxaan kugu iri arrin aan jirin, hadal aan waxba ka jirin ayaan kugu iri, yacni iska kay cafi, balse waxaan kugu boorin lahaa muxaadarada xigta in aad ka dhigtid fadliga ay salaadu leedahay. dunuucda sheekadani waxa weeye ha farin qofka kale ee dhigaaga ah ama walaalkaaga ah wax aadan adigu ku dhaqmayn. waxaan rajaynayaa inaad ka bogateen. aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum.